Shabeelle isha koowaad ee wararka Soomaalida. الرحيم subax wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka idaacada Shabeelle ee sana waxa kamid ah al-shabaab oo weerar xooggan ku qaadeen shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha oo ka howlgalaysa deegaan hoostaga wadanka Kenya faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beelad oo ka dhacay deegaano hoostaga gobolka Shabeellada Dhexe madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo baaq degdeg ah ka diray gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo kulamo la qaatay qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka magaalada Beedhabo ee xarunta gobolka Baay dowladda Soomaaliya oo ka hadashay shir u dhaxeeya wadamada Carabta oo ka qabsoomay dalka Lubnaan maamulka gobolka Hiiraan oo ka hadleen maxaabiis ka baxsatay xabsiga dhexe magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wararka dibadda Shabeelle subaxnimada ee sana waxa kamid ah Israel oo duqeyn dhanka cirka ka fulisay dalka Syria iyo ku dhawaad 10 askari oo lagu dilay weerar ka dhacay dalka Mali
soo gudbinta warka subaxnimo ee raadiyo Shabeelle waxaa idin suurta gelisay warshada isbuunyada Shaaka doodarayaal tayeesan iyo fadhi carbeed tayo wanaagsan leh u doona warshada isbuunyada Shaaka. waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 22 January 2019 warkaas oo dhan waxaa la diyaaraa wariyaha Xasan Wali Sheekh Abubakar. aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Guuleed Cumar Xasan. bismillaahir rahmaanir rahiim. subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan. xarakada al-shabaab ayaa weerar ku qaaday shirkad laga leeyahay waddanka Shiinaha oo ka howlgalaysay deegaan hoostaga dawladda Kenya. warkan waxaa faahfaahinaya wariyaheena Xasan Kaafi Xuseen Axmed. taliska booliiska Kenya ayaa sheegay in rag hubaysan oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab ay weerareen xarun dhismaha ah oo laga leeyahay dalka Shiinaha taas oo ku taala gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. taliyaha booliiska Kenya Joseph Boyned ayaa shaaca ka qaaday in kooxdani hubaysan ay rasaas ku fureen xaruntaasi oo ku taala deegaanka Shimbiraay oo u dhow magaalada Garissa ee xarunta gobolka waqooyi bari dalka Kenya. sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay ka hortageen dagaalamayaashaasi oo la sheegay in halkaasi ay weerar ku qaadeen isla markaana ay rasaas hugiyeen ciidamo ku sugnaa halkaasi. iyadoona la sheegaya in ciidamadaasi ay iska difaaceen sida uu hadalka u dhigay taliyaha ciidamada Kenya Master Joseph. waxaana intaasi ku daray hadalkiisa inaysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi al-shabaab ay ku qaadeen xarunta Shiinuhu ku leeyahay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. weerarkani ayaa imaanaya xilli al-shabaab ay toddobaadkii hore weerar ku qaadeen hotel nuuca raaxada ah oo ku yaala magaalada Nairobi ee xarunta dalkaasi halkaasi oo dagaalamayaashoodu ay ku dileen ilaa iyo 21 qof. faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaallo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo ka dhacay deegaano hoostaga gobolka Shabeellada Dhexe iyadoona madaxweynaha Hirshabelle uu codsaday in si degdeg ah loo joojiyo dagaaladaas. Guuleed Cumar Xasan ayaa faahfaahinta eegaya. sidaan ku helayno wararka ka imaanaya gaaraha degmada Mahada ee gobolka Shabeellada Dhexe dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed ayaa saacadii aanu ka soo gudubnay ka dhacay deegaano ku dhow degmadaasi. dagaalka oo xoogiisa qarxay shalay galinkii dambe ayaa la sheegayaa ilaa xalay inay jirtay dagaal la goosgoos oo dhinacyadaasi dhexmarayay. sidoo kalena uu jiro khasaarooyin isku jira dhimasho iyo dhaawac oo dagaalku ka dhashay iyo sidoo kale in dadii la kala afduubto waa sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka. mid ka mid ah dhinacyadii dagaalamay ayaa wararku waxay sheegayaan in 7 ruux ay ka afduubteen dhinacii kale ee weerarka ay ku qaadeen inkastoo ilaa iminkaan leegeen halka ay sida rasmiga ula aadeen. dhinaca kalena waxaa jira dhaqdhaqaaq ee saakay halkaas ay ka wadaan dhinacyadaas oo laga baqdin qabo in mar kale uu dib u qarxo dagaalku u dhaxeeya maleeshiyaadkaas oo ku dagaalamaya agaaraha degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan agaaraha halka loo yaqaan deegaanka Ceelbaraf. waxaana socdo dadaalo la doonayo in xal looga gaaro xiisada halkaasi ka soo cusboonaatay iyadoona dhinaca kale ay jiraan kheyladaan laga dirayo dagaaladaas ka jira degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo dib ugu laabtay Jowhar ayaa si kulul kaga hadlay dagaalka waxaana sheegay in dagaalkaas uu ku soo aaday xilli xaalad adag ee ka jirta deegaanada maamulka Hirshabelle loona baahan yahay in si degdeg ah xiisada loo joojiyo. waxaana sidoo kale nasiib darro ku tilmaamay dadka hurinaya colaad u dhaxaysa beelahaasi walaalaha. ayadoo dhibaatooyinka abaaraha iyo dhibaatooyinka cadowga iyo dhibaatooyinka noloshuba ayna haystaan in haddana dhexdeenna aan ka dagaalano waa dhibaato. runtii dadka mas-uuliyiinta oo arrintaas ay xanuunka ku hayso oo ahlu khayrka oo ku dhex jira ciidamada kala dhex fadhiya oo ha ahaadaano kuwa muxuu ahay ciidamada qalabka sida ama mas-uuliyiinta Hirshabelle ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda ku dhex jira odayaasha deegaanka culummada intii wanaagsan oo arrintaas nagala qayb qaadanaysa aadaan u mahadcelinaa. dhinaca kaleeto dadka niyadda iyo gacanta iyo maskaxda iyo afka ku taakulaynayo inay dagaaladaas u socdaan oo
oo runtii aad u nasiib daraa oo dad ka midu ay mataqaanaa ay dhaqan yihiin oo dad ka midu ay yihiin muxuu ahay mas'uuliyiin oo dad ka midu ganacsaday ay yihiin oo dad ka midu mas'uuliyaad kale ay leeyihiin dagaaladaasna ay ku raaxaysanayaan ayna hurinayaan waa nasiib daro dadkaas waxaan leeyahay aakhirana xisaabaa idin sugaysa adduunna waa idin jeednaa waa idin aragnaa waana iska kiin celinaynaa inta badan deegaanada hoostaga maamulka Hirshabelle ayaa waxaa ka taagan xiisado u dhaxeeya beel walaalaha oo siyaabooyin kala duwan halka u daga iyadoo dhawaantan juhdi badan lagu bixinayay xalinta beel walaalaha oo ku dagaalamaya gaaraha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa haddana waxaa soo cusboonaaday xiisada kale oo horle u dhaxeeya beel wada daga gobolka Shabeellada Dhexe gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa ayaa ururada bulshada rayidka kula kulmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay ururada bulshada rayidka oo qayb muhiim ah ka qaatay matalaadda shacabka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya kulankan ayaa ahaa mid lagu doonayay in kalsoonidooda nabadeynta ah ay markaasi qaataan oo ay ka dhex qaataan bulshada dhexdeeda si markaasi loo dardargeliyo howlaha dib u heshiisiinta ee maalmahan ugu dambeeyay oo gudoomiyaha golaha shacabka ah u joogay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kulanka intii uu socday ayaa waxaa talooyin ku saabsan qaabka loo gaarsiin karo bulshada rayidka howlaha dib u heshiisiinta iyo sida looga gudbi karo caqabadaha hortaagan horumarka bulshada koonfur galbeed waxa ay la wadaageen gudoomiyaha golaha shacabka sidoo kale waxa ay soo jeediyeen in dhankooda ay qayb ka ahaan doonaan ina ka codsanayaan in ay qayb ka ahaadaan guddiyada ku howlan dib u heshiisiinta maadaama ay jiraan shakhsiyaad si wanaagsan uga soo qayb qaatay dib u heshiisiin badan oo laga sameeyey deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya dhankiisa gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya ayaa isaguna ka aqbalay islamarkaana talooyinkooda si wanaagsan u dhageystay si kastoo ay ahaato maalmihii lasoo dhaafay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa ayaa ku sugnaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyagoona halkaas bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka kula kulmiyey waxay arrimahaasi oo dhan daba socdaan xilli dhowaan xilka madaxtinimada ee markaasi maamulka koonfur galbeed Soomaaliya loo doortay madaxweyne cusub islamarkaana dhowaan lagu caleemo saaray magaalada Baydhabo caleemasaarkaas oo uu ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ay baaris ku wadaan sababta ka dambeysay in maxaabiis ay ka baxsadaan xabsiga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan mahad maxamed cabdiraxmaan mahad mutawakkil ayaa faahfaahinta haya yuusuf axmed hagar dabageed gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay maxaabiis ka baxsatay xabsiga dhexe ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana uu sheegay in ciidamada ammaanka ay ku raad joogaan maxaabiistaas baxsatay dibna loogu soo celin doono xabsiga waxa uu digniin adag u diray misna sheegay inay baaris ku socoto xilligan saraakiil iyo askar fududeysay inay baxsadaan ciddii lagu ku caddaata ayuu muujiyey in ciqaab adag ay la kulmi doonaan xabsiga dhexe ee degmada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan dadaa ka fakaday ciddii fakashadaas u sabab ahayd waa daba geli doonaa haddii alla idmo hadday madaxda xabsiga ay tahay iyo haddii madaxda asluubta ay tahay iyo haddii askarta asluubta ay tahaba guddi saraakiil ah oo ciidamada kala duwan ahaa arrintaas soo baari doona cidday ku caddaatana laguma cafi doono haddaana shakiyada aan qabno dadka ka qabno guddigaan u bandhigi doonaa haddii alla idmo xabsiga dhexe ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaan helin weli dayactir wanaagsan inkastoo ciidamada ammaanka ay si aad u adkeeyaan maxaabiis badanna xilligan ay ku jirto taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa wasaaradda gaadiidka dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday inay xaliyaan dhibaatooyinka ka taagan xagga taargooyinka gawaarida isticmaasho wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho
maxamuud cabdinaasir maxamed soofaysane ayaa warkan faahfaahinaya. jenaraal maxamed cumar madaale oo ka mida saraakiisha ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa carabka ku dhiftay dhibaatooyin uu sheegay in ay ka jiraan dhinaca gaadiidka ee magaalada muqdisho. wasaaradda gaadiidka ayuu ugu baaqay in ay saxdo cilladaha taarikada maadaama inta badan baabuurta lagu qabto taarika la-aanta ay ku doodaan amaba ay ku andacoodaan in ay wasaaradda ka go-an tahay taarikadii. dhinaca kale taliska ciidamada xoogga ayuu ka codsaday in ay wax ka qabtaan baabuurta ama gaadiidka ciidamada xoogga ee gudaha magaalada u isticmaala qaababka aan sharciga ahayn. waxaan rabnaa wixii qolo walba aanu waajib ugu leenahay inaanu u sheegno oo ay ka soo baxaan. ciidamada qalabka sida waa raadsanaynaa, waa taliyaha ciidanka la ballansan, gooni baanu isu arkaynaa, hogaamada gaadiidka iyo taliyayaashooda. idinka waxaanu idinka rabnaa wasaaradda gaadiidka taargada kala go-aysa, taargadu waa kala go-daa, batantuhuna waa kala go-aa, labadaas in laga digtoonaadaan rabnaa. sharci darro laguma socon karo taarga la-aan iyo batanta la-aan. qofkii oo lacagtii shubay baa la leeyahay taargadii waa kala go-day, waa maqan tahay, waa dhibaato taagan, waana ka warqabaanu fiija baraa iyo agaasimaha guud. qofkii oo lacagtii shubay baa la leeyahay batanta laguma hayo, jildigiibaa go-ay. annagiina dariiqaanu u taagana. waxaan rabnaa inaan wax ka qabanno ninka aan batanta wadan iyo ninka aan taarga wadan. mararka qaar baabuur aan taarga lahayn ayay laamaha amnigu sheegaan in loo adeegsado weerarada ka dhaca magaalada caasimadda ah ee muqdisho. taliska booliiska ayaa iminka ku howlan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhinaca taargada iyo gaadiidka. wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay shir looga hadlaya arrimaha dalalka carabta, gaar ahaan dhaqaalaha waddamadaasi oo ka dhacay dalka lubnaan xaruntiisa bayruud. jaamac maxamed kadiye ayaa warkan faahfaahinaya. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane axmed ciise cawad, isagoo ka wakiil ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo, ayaa waxa uu ka qayb galay shir madaxeedka carbeed ee horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada ay martigelinayso dowladda lubnaan. shir madaxeedka carbeed oo ka furmay magaalada bayruud sida uu ku xusan yahay jadwal shaqadeedka looga doodayo kulankii gogol xaarka ee wasiirada ayaa waxaa looga hadlay 29 qodob oo ah waxyaabaha ay dunida carbeed wadaagto sida dhaqaalaha iyo bulshada. waxaa sidoo kale shirka looga hadlay hindisayaasha iyo istaraatiijiyadda la xiriirta cunnada, tamarta, ka takhalusidda saboolnimada, ilaalinta haweenka, istaraatiijiyadda carbeed ee tamarta joogtada iyo dhaqaale abuuridda waxyaabaha dijitaalka laga sameeyo iyo kuwo kale. wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale bayle oo qaybna ka ahaa wafuudda uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ayaana faahfaahin ka bixiyey ajandaha soomaaliya ee la tagtay shirkaasi. annagu waxaan la tagnay arrinta ugu weyn waxay arrintii deyn cafiska. sida la wada ogsoon yahay carabtu deyn badan bay nagu leedahay, adduunka oo dhan baa deyn bay nagu leeyahay, iyaga laftoodu qayb dhan bay nagu leeyihiin. bilyan iyo waxoogaa bay nagu bilyan iyo 100 milyan ayay nagu leeyihiin. marka taa inay naga dhaafaan ayaan anagu doonayno ajendaa ku jirtay. ajendaha inay soo gasho waxaan ka soo bilownay shirkii 18 December aan ku yeelanay qaahira aan ku yeelanay. haddana doraad baan ka shirray, wasiiray waa la soo geliyey, marka waa la ansixiyey. marka in deynta naga dhaafo taasi mad bay ahayd. ta kale waxay ahayd lacag ay hore inoogu ballan qaadeen oo 10 milyan ah oo ay yidhaahdeen waa kab miisaaniyadeed ay yidhaahdeen oo aan wax badani ka iman, ayaan iyadana daba joognay. ayadana way ansixiyeen. arrinta saddexaad waxay ahayd inay naga caawiyaan dibudhiska waddanka, in laysku raaco, in dowladuhu na caawiyaan, iyadana waa laysku raacay. marka waa nasiib wanaag inay isku wada raaceen madaxdii maanta ay fuliyeen arrintaa iyada. jandaheenooga taasu ah. soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka qabta in dalalka carbeed ay ka cafiyaan deymaha, sidoo kalena ee taageero buuxda ay ka helaan dalalkaasi. halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda shabeelle ee magaalada muqdisho. militariga israa'il ayaa sheegay inay duqayn cirka ah ay xalay ku weerareen fariisimo ciidamada iiraan ay ku leeyihiin gudaha waddanka syriya. war ka soo baxay taliska militariga ee israa'iiliyiinta
ayaa lagu sheegay in duqayntan bartilmaameedkeedu uu ahaa iiraaniyiinta ku sugan dhulka syriya ayna markaasi qaadeen iyaga oo digniin u diray syriya taas oo ku aadan in aysan isku dayin inay waxyeelayaan dhulka iyo ciidamadooda. dhanka kale war ka soo baxay dowladda syriya ayaa lagu sheegay in ciidamadooda cirka ay ka hortageen duqayn cadowtooyo oo ka timid dhanka yahuudda. iiraan ayaa haatan ka mid ah taageerayaasha lafdhabarta u ah xukuumadda madaxweyne bashaar al asad oo dalkiisu uu ka soo kabanayo colaado jexjeexay 10 sano ku dhowaada. dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in meelaha la bartilmaameedsaday ay ka mid tahay gudaha magaalada dimashq ee xarunta dalka syriya, iyagoona xalay halkaasi laga arkayey uuro iyo qiic walxaha qarxa ka dhashay oo cirka isku sii shareeraya. tallaabadani ayaa imaanaysaa xilli dowladda ruushku ay israa'il uga digtay weeraro ay ku qaado gudaha waddanka syriya. warkii aad kala socoteen subaxnimadan oo ay taariikhdu ku beegan tahay 22 bisha janaayo sanadda 2019 wanageynta ciddii warkan u dhaafo waxay dib uga baaran karaan bartaanu internetka ku leenahay ciwaankeedu yahay shabelle.net. 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 internetka ku leenahay ciwaankeedu yahay shabelle.net.